Nabadda iyo naxariista Ilaahay baa korkiina ha ahaato dhammaantiin. Kuna soo dhawaada Dalmar Official TV. Cilmi-baadhis cusub ayaa lagu ogaaday dadku dabeecad kasta oo ay kala leeyihiin inay u qaybsamaan 4 qaybood oo dhammaan dabeecadahaasi ay midiiba qayb ay hoos tagto. Cilmi-baadhayaal ka tirsan jaamacadda Northwestern ayaa baadhis ay ku sameeyeen 1.5 milyan oo qof oo dunida oo dhan ku filaqsan ayaa lagu ogaaday dadku inay leeyihiin 4 dabeecadood oo midkood, kuwaas oo kala ah dhexdhexaad, ururraan, danayste iyo hoggaansho. Natiijada warbixintan uu soo saaray wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa sheegaysa in natiijadan cusub ay carinayso aragtiyihii cilmi nafsiga ah ee hore u jiray, waxaana lagu wadaa in natiijada daraasadani ay faa'iido u noqoto ganacsatada iyo maamulayaasha hay'adaha kala duwan ee xukuumadda iyo rayidkaba. Waxay kaloo ay natiijadani caawinaysaa dadka bixiya adeegyada daryeelka caafimaadka guud. Qaybintan 4 ee xeelleerayaashu u qaybiyeen dadka waxay ka eegayeen 5 dabeecadood oo bini'aadamku dhaqan u leeyahay, kuwaas oo kala ah furfurnaanta qofka, baraarugsanaanta, dhugmada maskaxda, damiirka iyo qalbi furnaanta. Haddaba 4tan nooc ee shakhsiyadda aadamuhu u qaybsamo waxay kala yihiin: qof isku ururiya mas'uuliyadaha kana fikira in hawl kasta iyo dhibco kasta oo soo kordha naftiisa ku ururiya. Waa qof hindisa badan, waxa uu jecel yahay inuu isagu hogaamiyo cidda ku xeeran iyo in awooddiisa iyo taladiisa uu dadka kale u hoos keeno. Ma jecla inuu isagu noqdo raaciyad ama cidda la hogaaminayo. Laakiin dhinaca fiican marka aynu ka eegno waa shakhsiyadan ka waaban inuu waxa saxda ah sameeyo iyo inuu khaladaadka saxo xitaa haddii uu yahay khaladad uu isagu sameeyey. Shakhsiyadda labaad ee aadamuhu yeeshaa waa inuu noqdo ruux lafagurka iyo falanqaynta arrimaha ku fiican. Marka arrin loo sheegayo ama qorshe loo bandhigayo, waxa uu jecel yahay in faahfaahinta oo dhan loo raaciyo, xitaa tafaasiisha aadka u yaryar, adiga oo weliba caddeemo u yeelaya waxaad sheegayso. Shakhsiyadda saddexaad waa qof ku fiican cabirista. Waxa uu leeyahay tilmaamo badan oo hal-abuurnimo. Waxa uu ceeb u leeyahay in go'aanada uu gaadhayo uu ku saleeyo dareenkiisa. Si kastaba ha ahaatee, talada iyo aragtida ka soo horjeeda inuu dhageysto diyaar ayuu u yahay. Shakhsiyadda afraad waa qof dadka ururiya oo inta badan ay jacayl iyo xiriir diiran ay ku yaqaanaan. Dadka ku xeeran inta badani kalsooni ayay u qaadaan. Waxa uu jecel yahay hawl wadaagga iyo iskaashiga, oo qof jecel inuu dadka caawiyo, laakiin aad uga fogaada ismiidaaminta iyo inuu ku dhowaado wax kasta oo khatar ku noqon kara. Haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan like lana wadaag asxaabtaada. Mahadsanid.